السلام عليكم. وفرحية كبيرة سيدو جيدانبا وحان آدو قحوما هاي اون مان تربا inaan ka hadlo dhalinyarada fanaaniinta oo kamid ah kooxda xidigaha geeska sidaad ogtiin baxamar ay tageen show ku lahaayeen waxay soo arkeen vaniskoodi taageerayaashooda ay jeclaayeen weligood dhageysan jiray ay soo arkeen la soo ciideen u soo heeseen sa ogeydeen loo soo dhawiyay way baxeen hargeysa ka digeen gurigoodii iyo hoygoodii u noqdeen meeshay deganayeen ku dhasheen airportka lagu sugaayay waa la qabtay waa la xiray maxaa loo xiray maxaa xamar u tagteen Soomaa aniga hadda farxiya kaba yara la dhahaa hargeysa weligay ma tagin ani xamar ku dhashay inta ku soo leekaaday fanaanad reer Muqdisho ayaan ahay hargeysa haddaan tago on show ka dhigto on taageerayaashayda vaniskayga dadka ay jecel aan waqti la soo qaato waan xamar ku soo noqdo la xiro maxaa dareemi lahayd reer hargeyso dadka hargeysa joogan la hadlayo maxaa dareemi lahayd soo cunsurnimo iyo xumaan iyo reer hargeysa nacayb kamaadan fahamteen dadka jooga ee xamar oo aniga saa ii xumeeyay horta saamtiin ay dareemayaan maanta taageerayaasha xamar joogay iyo dadka Soomaaliya jooga oo dhan in dartood loo xumeeyay fanaaniinta walaalahooda ee u yimid ee waqtiga la qaatay jecel yihiin haddii lagu haysto calan ay huwadeen iyo calan ay isku dadadeen waxaan rabaa inaan wax yar ka hadlo farxiyo fiska calanka left and right ay isugu duuduubi jirtay soo calanka Soomaaliland ma ahayn iska daa dawladda Soomaaliya shakhsi Soomaaliya farxiyo fiska ku dhagan yahay arkay ama caynaya ama video soo duubay ama cambaaraynaya arkay ma dhicin fanaaniinta en ka timaada hargeysa markay adduunka tagaan shooyada waxa u buuxiyo ummadda Soomaaliyeed ma aha qolo gaara ma aha qabiil fanaankuna qabiil ma laha siyaasad wax naga gala ma laha anaga shaqo iyo shaqaan ku leenahay ma laha xaflad 18 May meel kasta lagu dhigaa qurbaha waa aragteen ummadda Soomaaliyeed tagto oo baashaasho oo ka tumata fanaaniintiina ku casuuntaan oo yimaada reer Soomaaliland dadka reer Soomaaliya aas fanaan Soomaaliyeed ay ugu tagaan wax ka galay meesha waxa lagu haayo iyo waxa ka socda ma jirto shakhsi ahaan anigu markaan iska hadlo Soomaaliland ma nacbi jiritaankeedan jeclahay waa dal horumar samaystay waa walaalaheen cadow kuma ihi kama xumi haddii inta tago aan haddaan hees Soomaaliland aan u soo qaado oo niraahdo horumarkaad gaarteen iyo wanaagga samaysateen aad ugu faraxsanahay oo la ii xiro soo khalad ma aha ilmahaanu maba samaynba wiilashan fanaaniinta iyo gabadhan xiran maanta maba samaynba meesha way tagaan hees jacayl ay ka qaadeen fanaaniintooda waxay waqti la qaateen taageerayaashooda Soomaaliland ha soo noqotay iyo Soomaaliland iyo kala go'an iyo Soomaaliya saxan iyo midna ma aysan dhihin qadiyadooda iyo waxay aaminsan yihiin wax ka galay shacabka Soomaaliyeed ma laha ayaga fanaaniin baa loo arkaa fanaanku markuu af Soomaali ku heeso fanaan Soomaaliyeedna yahay waa fanaan Soomaaliyeed wax naga quseeya anaga qabiil iyo cid is haysata iyo niman maaragtay isu maaragtay adduunka isu kala gooshaayo oo birida isla qadaynaya saadambar isla cashaynaya dadkana waalaya shaqo shaqaan ku leenahay ma laha hadii sheegaynaa shacabka reer hargeysa Soomaaliland jooga hadda jeceshihiin fanka ama aad fanaan Soomaaliyeed inaad dhageysataan aad jeceshihiin waxa ka dhacay hargeysa waa inaad ka dhiidisaan hadda maanta anaga qurbahan joognaa sida wax u dhaceen ma ogin wadanka gudihiisa ma joogno ma naqaana falkaan cidda ku kacday iyo dhalinyarada dad qofka inta qabtay xirxiray dad madaxa uma gafi karno dad madaxa ma cayn karno meesha dadkeena yaa jooga ummad Soomaaliyeed aa joogta reer Soomaaliland oo dhan ma cayn karno ma cambaarayn karno mana xumayn karno laakiin waxaan ka xunahay dad fanaaniina oo walaalaheena oo yimid oo xamar show ka soo dhigtay in maxaad xamar u tagteen loo xiro yaa xamar ka xaaraantimeeyay fanaaniinta reer Hargeysa yaa xamar ka xaaraantimeeyay fanaanka reer Soomaaliland yaa aniga ii xalaalay in Hargeysa tago show ka dhigto la foolaa tagay Hodan Cabdiraxmaan tagtay kiin Khalid oo ahaa wixii loo tumaayay meesha oo intaas oo bilood joogay
waxaan baa ku dirayaa aan raba inaan la hadlo fanaaniinta reer Somaliland oo jooga qurbaha Sir Maxamuud aan soo qabsanaya ugu horeeyo Sir Maxamuudow ka soo hadal arrintan fanaaniinta yaan la caburin waa dhalinyaro ubax waaye taageerayaashoodu xaafad kuma eka wadanna kuma eka adduunka dhan laga taageeraa waa inay fankooda xor noqdaan biri maxaa soo socota marka fanaan reer Soomaaliya ama xamar ku dhashay Hargeysa ma tagi karo taasaad rabtiin in la ku keenaa anagana Soomaaliya anaga oo soo keenna mid ama Somaliland la bax ama Puntland la bax ama Xamarland la bax xuduud ma lihin xuduud ilaahay ha laga baqo dhalinyarada la soo daayo waliba ceebta meesha ka dhacday gabaraa ku jirta waxa xiran waxay ku sugan tahay xaaladeeda maanta ma ogin ilaahay ha laga cabsado waan ka xunnahay xidigaha geeska waxa idinku dhacay fanaaniinta Soomaaliyeedna geesay ka wada yihiin waxa qaladka meesha ka socda isku filim baan ka haysanaa I'm so sorry. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.